wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska dalka injineer Saalax Sheekh Cismaan Muuse ayaa maanta xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay qaar kamid ah haweenka naafada ah kuwa oo ku bohooway urur la yiraahdo Sawda laguna dhisay magaalada Muqdisho. kulankan waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo qaybta dib u dhiska booliska, waxaana ugu horeyn halka ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka naafada ah ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan Sawda Basiire Cabdi Maxamed, iyadoo sheegtay inay ku faraxsan tahay qaabilaada uu sameeyay wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska dalka. waxa ayna ka codsatay wasiirka in loo dhiso xarumihii ay lahaayeen dadka degan laga saaro. naafada waxaan ognahay barisamaadkii markii dalkan uu maxaa darajada sare maray ee la soo dhaafan anaga waxba u garanay in qaaya iyo qiimo weyn lahayd loo sameeyay xarumo. haddana waxaa la marayaa xarumaheedii inay dad kale ku adeeganayaan. wasiirka howlaha guud waxaan ka rabnaa xarumahaasna inuu dadaal badan u galo sida looga saari lahaa dadka, inuu noogu sameeyo dhismo, inuu haddii Allah awood la ogolaado tayeeyo oo horumariyo dadka naafada ah. wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska iyo guriyeynta injineer Saalax Sheekh Cismaan ayaa isna sheegay in dadka naafada ah ay yihiin kuwa ugu mudan in wax loo qabto, diyaarna ay u tahay wasaaradda in ay dib u dhisto guriyihii dadka naafada ah wax loogu qaban jiray. annaga waxaa naga go'an dawladda ahaan khaasan wasaaradayda in la siiyo xuquuqda ay leeyihiin dadka baahida gaarka qabo, dhanka shaqada ahaato, dhanka waxbarashada ahaato. waxaa kaloo naga go'an horumaha ay lahaan jireen inaan dib u soo celino, aan dayactir ku sameyno. diyaar baan u nahay. waa dawladu waxaan nahay wasaaradooda nahay, waxaan nahay dawladooda nahay, waxaan nahay walaalahoodii. waxay ka mid yihiin ummadda Soomaaliyeed dadka ugu qiimada badan. yani markii la leeyahay baahida gaarka ah yani la leeyahay xagga ilaahayna waa nagu dhawaasha badan yihiin, xagga bini'aadamnimadana waa naga wanaagsan yihiin. haweenka naafada ah ayaa muddooyinkii dambe waxa ay ku dadaalayeen sidii dawladda ay uga heli lahaayeen ka gacansiinta sidii wax loogu qaban lahaa dadka naafada ah, maadaama ay yihiin kuwa ugu horeeya oo ay taabteen dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dalka ka dhacay. Cabdirasaaq Maxamed Faarax, SN TV, Muqdisho.